soo dhawaada daawadeel waxaan ahay cabdijaliil cusmaan. dunidan inta aanu dul saaranahay waxaanu goobjoog u noqonaa amaba aanu la kulanaa dhacdooyin xanuun badan oo saameyntooda leh oo siyaabo kala duwan oo nolosha ah inoo saameyso. sheekadan aan idinla wadaagi doono waxay ku dhacday maxamed xasan khaliif oo ah wiil dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo waqti xaadirkan ku nool dalka Kenya, isla markaana la nool dhacdo aad u xanuun badan oo ay yartahay dadka la kulma qadartan oo kale. maxamed waxay dhawaan isguursadeen Aasiya Cabdi oo ah gabar Soomaaliyeed oo ku nooleed dalka Soomaaliya gaar ahaan degmada Doolow ee gobolka Gado. kadib in muddo ah oo ay xiriir lahaayeen 23kii bishii December ee sanadkii tagay ayaa waxa uu arooskoodu ka dhacay degmada Doolow ee gobolka Gado ee gudaha Soomaaliya, isla markaana waxay ku heshiyeen amaba ay isla qaateen in ay ku aqalgalaan dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi. maxamed xasan khaliif xilligaasi waxa uu ku noolaa amaba uu ka shaqaysanayay koonfurta Suudaan, isagoona markii uu meherkii aroos ka dhacay u soo wareegay dalka Kenya gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Nairobi. waxay isla qaateen isaga iyo xaaskiisa in ay ku aqalgalaan isla markaana ay noloshooda ku qaataan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. maalmo kooban kadib arooskii Aasiya iyo maxamed xasan khaliif waxaa geeriyootay Aasiya ayeeyday, taas oo soo dadejisay amaba soo gaabisay in ay yaraataa farxaddii arooska gabadhan Aasiya maadaama ay ayeeydeedu geeriyootay. markii la laabay gogashii tacsiyada ee Aasiya ayeeydeed waxay qoyskan cusub go'aansadeen in Aasiya loo soo wado dalka Kenya halkaas oo ay ku aqalgali doonto. sida caadada u ah dhaqanka Soomaalida waxaa magaalada Nairobi ka tagay Aasiya habaryarteed si ay gabadheeda u soo galbisay isla markaana ay u soo gaarsiisay gurigeeda Nairobi. intii ay ku guda jireen safarkii dhulka ahaa Aasiya iyo habaryarteeda ayaa waxay shil gaari ku galeen duleedka magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. shilka kadib markii isbitaalka loola cararay waxaa madashaasi ku geeriyooday Aasiya habaryarteeda kadib dhaawac halis badan oo ka soo gaaray shilkii ay ku gashay duleedka magaalada Garissa. waxaa isla shilkaasi dhaawac halis badan uu ka soo gaaray Aasiya Cabdi oo ahayd gabadhii aroosada cusub ahayd isla markaana loo sii galbinayay sayigeeda maxamed xasan khaliif. dhaawaca daran ee soo gaaray dartii dhakhaatiirta Garissa waxay sheegeen in aanay wax ugu qaban karin gudaha magaalada Garissa iyadoo loo soo qaaday magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. kadib xaaladeeda oo ahayd mid aad u adag, isbitaal ayaa la geeyay Aasiya Cabdi magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. maalmo kooban kadib waxaa sidoo kale geeriyootay Aasiya Cabdi oo iyana ahayd gabadhii aroosada cusbeyd ee loo soo galbinayay sayigeeda maxamed xasan khaliif oo isagu ku sugnaa markaasi magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. waa geeri isxigta oo asiibtay qoyskan laga soo bilaabo Aasiya ayeeydeed oo ku geeriyootay magaalada Doolow, habaryarteed oo ku geeriyootay magaalada Garissa kadib shilkii ay ku gashay duleedka magaalada Garissa, iyo sidoo kale Aasiya Cabdi oo ahayd gabadhii aroosada ahayd oo iyana ugu dambeyntii ku geeriyootay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. waa dhacdo xanuun badan oo ay yar tahay in qofka dhalinyarada ah ee ku dhacday dhacdadaasi uu ka warramo. maxamed xasan khaliif oo ah wiilka dhalinyarada ah ee qisadan la nool ayaa u warramay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da isagoona ugu sheekeeyay qisadan xanuunka badan ee haleeshay.